dhacdo naxdin leh laba carruur oo keliyaha iyo beerka inta lagala baxay lagu soo tuuray duleedka magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed si aan u gudagalno dhacdadan iyo sababta ka dambaysa fadlan like saar muuqaalkan share garee naguna soo beer walaal mahadsanid dhacdadan naxdinta iyo argagaxa leh ayaa ka dhacday duleedka magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waana dhacdo ku cusub isla markaana ugub ku ah magaaladaasi iyo dadka deegaankaba meydadka labada carruurta ah ee keliyaha iyo beerka lagala baxay oo uu dhalay xildhibaan hore Sheekh Aweys Cabdullaahi oo ka tirsanaa baarlamaankii sagaalaad ee Soomaaliya ayaa saakay laga helay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed iyagoo carruurtaasi keliyaha iyo beerka inta lagala baxay meydkooda halkaasi lagu soo tuuray carruurtan oo la waayay shalay xilli loo diray dugsi qur'aan ayaa raadin dheer kadib dib loo helay iyagoo meyd ah isla markaana loo dilay si arxan darro ah waxaana dadka ehelada ugu wardambeysay kadib markii carruurtan loo diray dugsi halkaasi ku yaala oo qur-aanka kariimka ay ka baranayeen dadka deegaanka ayaa sheegay in carruurtaasi oo kala ahaa gabar iyo wiil lagala baxay keliyaha iyo beerka kadib qalliin lagu sameeyay isla markaana meydkooda duleedka magaalada Baydhabo lagu soo tuuray taas oo naxdin isla markaana argagax ku noqotay dadka deegaanka iyo dadkii halkaasi ka agdhawaaba dhacdadan naxdinta leh ayaa dadku waxa ay sheegeen in ay noqonayso dhacdadii ugu horeysay isla markaana markaasi keliyaha lagala baxay beerkan lagala baxay halkaasi lagu soo tuuray iyagoo ka cabsi qaba in marar badan ay dhacdadan soo noqoto qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa yiri walaal waxaan aad uga xumahay geerida lama filaanka ah ee carruurta yar ee walaalaha ah arbacadii shalay waxay aadeen dugsi qur'aan kadib waa la waayay waxaana la sheegayaa in saaka aroortii hore iyagoo meyda laga helay hareeraha mid ka mid ah duleedka magaalada ama xaafadaha magaalada Baydhabo waxaana la sheegay in qaybo ka mid ah jirkoodii sida keliyaha iyo beerka ay ka maqan yihiin oo lagala baxay ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo halkaasi ka agdhow dhinaca kale laamaha ammaanka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan waxa ay wadaan baaritaano dheeraad ah oo lagu baadi goobayo dadkii falkaasi carruurtaasi keliyaha iyo beerka inta kala baxay halkaasi ku tuuray si aysan marar kale u soo noqon isla markaana cadaaladda loo soo hortaago dhacdadan ayaa ugub ku ah magaalada Baydhabo deegaanada Koonfur Galbeed iyo guud ahaanba Soomaaliya waana arrin foolxumo ah oo dadka iyo deegaankaba ku soo korortay waxayna dadku cabsi ka muujinayaan in dhacdadan oo kale marar badan ay soo noqoto walaal sii sheer garee like saar muuqaalkan mahadsanidin badan